diyaargarowga soo dhaweynta madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa laga dareemayay tan iyo shalay magaalada Baydhabo ee gobolka Baay waxaana saakay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo u soo dareeray bulshooyinka qaybahooda kala duwan iyagoo raba inay soo dhaweeyaan madaxweynahooda. garoonka ayaa mashquul aad u weyn laga dareemayay waxaana soo dhaweynta madaxweynaha ka qayb galay dhammaan madaxda maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo uu ugu horeeyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan. markii ay soo cagdhigatay diyaaradii sidee madaxweyne Farmaajo waxa ugu horeyn ay is salaameen madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan isagoona socod dheer ku maray garoonka oo uu gacan qaaday dhammaan bulshadii u taagneed soo dhaweyntiisa iyagoo ku soo dhaweynayay erayo ay ka mid yihiin madaxweyne soo dhawow ku soo dhawow Baydhabo Janay. soo dhaweyn kadib madaxweynaha iyo wafdigii uu hogaaminayay oo ay ka mid ahaayeen wasiirka gaashaandhigga, wasiirka caafimaadka, wasiirka gargaarka iyo ka hortagga masiibooyinka iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk Soomaaliya waxa ay kulan daqiiqadaha xarunta madaxtooyada kula qaateen madaxda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. intaasi kadib waxa madaxweynaha la soo dhaweeyay bulshooyinka qaybahooda kala duwan oo kula hadlay howl weyn oo ka tirsan aqalka madaxtooyada. ugu horeyna waxa hadal kooban oo soo dhaweyn ku aadan qaatay madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan. aad u faraxsanahay madaxweynaha inuu booqasho ugu yimaado runtiina dadweynahan dadka nabadda jecel dowladnimada jecel dadka deegaanka goboladan dowladnimadu aad ay u jecel yihiin qofkii dowladnimada jecel mar walba madaxdu waa jeclaana runtii si dowlad loo helo runtii aad ugu faraxsanahay madaxweyne adiga iyo wasiirada iyo dhamaanadaba soo dhawaada dhabaanadii gobolkan laga doortay oo dadkii sare madaxdii magaaladan waa kula socdaan duqii odaygii gobernatooraha magaaladan ka ah oo kula socdaa shaadan iyo dadkii magaaladan soo xukumi jiray oo dadkan madaxdooda waa kula socdaan. dadkan baahida maanta ay qabaan oo ugu daran madaxweyne ay u ooman yihiin waa dowladnimo. dowladnimadaasna waxay dareemi karaan maalintii jidka Baydhabo inta baabuur Corolla inta ku qaataan ay xamar tagaan haddaysan baabuur Corolla intaysan qaatan haddaysan xamar tegin dadkan dowladnimadu shaki badan ay ka qabayaan. madaxweyne codsiga ugu horeeyo oo anoo matalayo Koonfur Galbeed codkooda iyo ku hadlaayo in kuwan dowladiidka ah oo jidadka gooyay oo ummadan u diiday socod iyo shaqo u diiday in laga ciribtiro. Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya ayaa hadal qaatay waxaana uu ka hadlay ujeedada uu u soo gaaray magaalada Baydhabo inay ka mid tahay sidii ummadan uu la qaybsan lahaa abaaraha ka jira deegaanada Koonfur Galbeed iyo sidii loo furi lahaa wadada dheer ee xiriirisa Baydhabo iyo magaalada caasimadda ee Muqdisho. Baydhabo Janay macnaheedu ma aha magaaladeed waa dadka fiican dadka dowladnimo raba dadka waala ah oo dadka soo martisooro soo dhaweysay maanta ay soo dhaweyseen insha Allah taasna waxa weeye waxaad ku raadinayseen waa dowladnimo waxa tinda dowlad jecel dowladana waa taqaanaan waxay tahay maxay dowladdu waa tan keenta amaanka iyo wada noolaanshaha. anna waxaad iga filaysaan waa dowladnimadaas oo ugu horeyso inaan jidkaas furo oo magaaladan ay noqoto sidii ahaan jirtay oo dadka soo dhaweysa oo Baydhabo Janay ahay insha Allah hawsha ugu horeysa aan ka shaqeynayo inay taas noqoto. waxaan rabaa inaan idin sheego sababtaan halkan u imid maanta laba arrimood yaa ugu weyn. kow inaan abaarta idinla qaybsado oo abaartan Ilaahay keenay ee aad la dhibaatooteen oo cudurradeeda wadata inuu Ilaahay naga dul qaado. anagana guddiga gurmudka runtii intii karaankooda ahaa way sameeyeen. laba wasiir ay la socda saddex wasiir ay la socda hal ahaada laba wasiir muddo bil gudaheeda laba jeer ku soo noqdeen. waa markii u horeysay oo uu soo gaaro madaxweyne Farmaajo madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya magaalada Baydhabo tan iyo intii loo doortay xilka madaxtinimo waana magaaladii u horeysay oo Soomaaliya ka tirsan oo uu booqasho ku yimaado. Cabdullaahi Nuur magaalada Baydhabo.